runtii bahweynta hawiye ee gogoshaan noo dhigtay nagu martiqaaday waan uga mahad celinayaa sida ay u muujiyeen dareenkooda damiirta wadaniyeed dal jecel iyo dad jecel uu ku dheehan yahay. mudanayaal iyo marwooyin, waxaa ballan ilaahay nagu ah anigoo ku hadlaya dhammaan hay-adaha dowladda, madaxweyne ministerka iyo baarlamaanka iyo reer banaadir oo dhan iyo madaxda ciidamada iyo ciidamadaba qayb kastoo dowladda codkooda anoo ku hadlaya, waxaa ballan ilaahay nagu ah inaan fulino aan ka jawaabno codsiga iyo rabitaanka aad halkan ka muujiseen. walaalayaal, waan dareemi karnaa danqashada aad u danqanaysaan nabadda bulaashay, bilicda caasimaddiinna iyo baraaraha dadkiinna. waxaan ognahay dhibaatooyinkii la soo maray sida ay dadka iyo dalkuba u yaalleen. muuqaalka wanaagsan waxaan rabaa inaan mar walba muujiyo sida aan idinkugu garab taagannahay, dowladda Soomaaliya ay idinkugu garab taagan tahay, dareenkiina foojigan oo ka foojigan wax alla wixii wax u dhimaya nolosha bulshada iyo bilicda caasimadda. waxaan idinkaga mahad celinayaa sida aad u garateen ee aad uga dheedhiseen damiir laawayaasha mar walba abaabula waxyaabaha liddi ku ah wadajirka iyo dowladnimada Soomaaliyeed. maalin kasta oo guri biliclihi uu ku soo kordho oo waddan nadiifihi ay ku soo kororto, dad ay dhibaysaa. waxaan u shaqaynaahu waa horumarka dadkeennan. waxaan u shaqaynaahu waxay tahay in bulshada reer banaadir ay hesho caafimaad. waxaan u shaqaynaa bulshada banaadir inay hesho waxbarasho. waxaan u shaqaynaa bulshada reer banaadir inay helaan biyo nadiif ah iyo koronto qiimo jaban. wax badan waa xaqiijinay, wax badanna waa u soconnaa inaan gaarno biidni illaahi alkariim. aad iyo aad ayaan uga xunnahay, mana soo dhoweynayno baaqyadii colaadda dhiillada colaadeed xambaarsanaa ee maalmihii lasoo dhaafay ka soo yeedhay odayaashii ka dhashay bahweyntan, laakiin aan hubo inaan lagu raacsanayn. xaqiiqdu waxay tahay beelweynta hawiye halkan joogta, rabitaanka ay maanta halkan ka muujiyeen, inta aad nabaddiinna ilaashanaysaan, waxaan nagu ballanaa inaan idinku horkacno sida aad u doonaysaanna aanu dhaqan gelinno. walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, muddo fara badan aad joogteen. ma rabo inaan hadalka idinku dheereeyo. mar kasta oo dareenkiinna inaad muujisaan aad doonaysaan, sidaan oo kale noo soo wargeliya. waa idin imaanaynaa, waana idinkala qayb qaadanaynaa. waxaan rabnaa inaanan ka yeelin, inaydan ka yeelin kuwa ku taliya ama ku talinaya magaaladani inay mar kale ay dunto, ay mugdi noqoto. mid baan maqlayaa ku talinaya ama ku baaqaya in canshuurta la joojiyo.
canshuurta oo la joojiyo waa haddii ayuu ku taliyey canshuurta in la joojiyo ayuu ku talinayaa. wuxuu ku baaqayaa in balaayo dhacdo oo dagaallo ay dhacaan. waddooyinkii aan shala dhisnay taayaruu ku gubayaa. wuxuu leeyahay marka dad yahow aniga ha lay doorto anigaa idin rooni. runtiis miya? waxaan rabaa inaan muujiyo nimanka mas-uuliyiinta ahaan jiray ama murashaxiinta madaxweynaha soo ahaan jiray haddana noo sheegay inay yihiin madaxweynaha hadda ay diidan yihiin xilka haaya. codadkii ayagu ay heleen ayagaa la jeclaaday oo siiyey. maantay marka ma garanayo, anigu hal cod ma siin, murashaxna ma hayn, xildhibaanna ma hayn, laakiin waxaan goobjoog ka ahaa meesha doorashadu ka dhacaysa. qof kasta oo ayaga ka mid ah intuu la ekaadaba wuxuu helay tiro codad ah. waxaa codaynayay xildhibaanadii Soomaaliyeed. tiradii uu helay mid kale ma siin. hawiyaha uu hadda sheegayo ma uusan siin, wuu ka ordaayey. wuxuu siiyey maxamed cabdullaahi farmaajo. codadkii u siiyeen ayagu ayuu madaxweyne ku noqday. haddana isagii ayaa madaxweyne ka ahaan la. ayagii isuma ogola, isagana uma ogola. bal waxay rabaan adigu noo sheeg. doorashooyinkii la dhigay sharciyadooda baarlamaanka labadiisa aqal ay dhigeen, madaxweynuhu saxiixay. inay diideen waa laga sheekeeyey. kii ay ayagu ku taliyeen inay diideen waa laga sheekeeyey. midkan ay ayagu dhigteen ayaga ayaa soo xulan lahaa xildhibaanada labadooda aqal. doorashada madaxweynuhuna waxay ka dhacaysaa meeshii ay ka dhici jirtay. meel wax laga farsamay karo kumaba taalo. marna ayagaa keensanaya xildhibaanada, guddiyadana ayagaa keensaday. haddana ayagaa hor istaagay. marka tii qof iyo cod ahaydna waa diideen. tii dadbaneedoo ayagu keeneenna waa diideen. in dowladnimada hore u socotona waa diideen. bal waxaa xala adinku keena. waxaan rabaa walaalayaal, jiidjiid kasta oo siyaasadeed waa waqti kooban, waa dhammaanayaa haddii alla idmo. balse wadajirkeenna iyo nabaddeenna waa inaan ku dadaalno. waa sida aad u garateen.